أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى: باب الغسل. هذا متكن باب الغسل qubayska baabkiisii waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aan dhammaanteen uga mahad celinaynaa. ilaahay si nabadgelyo ah casharkeennii dib isugu kaain soo celiyey safarkii xajka ka bacdi. waxaana ilaahay rajaynaynaa insha allahu tacaala oon ilaahay weydiisanaynaa si nabadgelyo ah ilaahay noogu dhammaystiro, nicamka aan haysanana ilaahay uu noo sugo, kuwa naga maqanna ilaahay uu noo siyaadiyo subxaanahu watacaala. dadka xujaajta ah oo horey xajka u tegana in ilaahay xajkooda ilaahay aqbalo, ilaahayna uu ku celceliyo. inta aan xajka teginna iyagana ilaahay xaj maqbuula allah ku arsuqo subxaanahu watacaala. dhammaanteenna xusnulkhaatima allahna siiyo. acmaasha aanu samaynayno dhammaantood ilaahay nooga dhigo kuwii loola jeedo liwajhi illaah, ilaahay dartii loola jeedo subxaanahu watacaala. maqbuuliinna ilaahay hanaga dhigo subxaanahu watacaala. darsigan aanu maanta bilaabayno waa kitaabkeennii riyaad ulbadiic, darsigiisii sagaalaad ama xalqadiisii sagaalaad wey. waxaanu kitaabka ka soo qaadanay ilaa 8 ama 8 xalqo ayaan soo aqrinay. xalqadii sagaalaad ayaa noo bilaabmaysa. xalqadan sagaalaad waxay ka hadli doontaa axkaamu lgusli, waa qubayska axkaamtiisii. yani qubayska axkaamtiisa waxaa loola jeedaa maxaa marka hore waajibiya qubayska, waxyaalaha qofka muslimka ah asbaabta waajibka ka dhigta qubayska maxay tahay. waxaanu kaloo baran doonaa kayfiyatu likhtisaal iyo qaabka sharcigu uu jideeyey in loo qubaysto. oo qofku markuu qubaysanayo qubays waajiba uu ka qubaysanayo, habkii iyo usluubkii uu u jideeyey ilaahay, nabigeennuna uu noo caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh. hadduusan marinin qubayskiisii ma ansaxayo. qubayskii hadduusan ansixinna cibaadaadkiisii salaaddii ay ugu horrayso ma ansaxayso iyaduna. marka ereygan algusli haddii loo adiifiyo ama lala xidhiiriyo sababkii, haddii sababkii loo adiifiyo oo tusaale ahaan la yidhaha gusluljumuca, jumcada qubayskeedii, ama guslulciideyn, labada ciidood qubayskeedii, markaas waxa wanaagsan in qoynka la gudo oo la cabiro gusli haddii loo adiifiyo sababtii qubayska keentay. sida maalan gusluljumuca, qubayska maxaa keenay? waa jumcadiyaa loo adiifiyey, markaa qoynka waan gudaynaa, waxaan leenahay gusluljumuca, guslulciideyn. haddii jirka oo dhan loo adiifiyo oo la yidhaaho guslulbadan, jirka dhaqidiisii, isagana qoynka waan gudaynaa, waxaan leenahay gusli. laakiin haddii shay kale lala xidhiiriyo, maalan maro iyo wax la mayrayo o la dhaqayo, markaa waxaa wanaagsan in qoynka la kordhigo la yidhaha ghaslulyadeyn. oo jirkii oo dhan looma adiifine, xibnihii qaybo ka mida loo adiifiyey. ghaslulyadeyn iyo ghaslulwejhi, qoynka waan kordhigaynaa markaa. ghaslulwejhi, wejiga dhaqidiisii. ghaslulrijlayn, labada lugood dhaqidoodii. ghaslulyadeyn, labada gacmood dhaqidoodii. walidaalika shaarixa wuxuu ku leeyahay huwa cinda alfuqahaa in udiifa ilaa sabab. haddii ereyga gusliga loo adiifiyo sababtii keentay, ka gusli اljumuca waalciideyn, falafsaxu addam, sida wanaagsan waa in la gudo. wakada waxaa la mida guslulbadan, haddii jirkii oo dhan loo adiifiyo. wa in udiifa ilى اthawbi wa naxwihi ka gasli اlyadeyn, gasli اthawb, gasli اlyadeyn, gasli اrijlayn, gasli اlwejhi haddii la yidhaha, falafsaxu alfatxu, markaa waan kordhigaynaa, gasliyaan lena. qaala shaykhu raximah اllahu tacaala, sheekhu wuxuu yidhi: laa yajibu ma waajibayo alguslu, qubaysku waajib ma aha. cala alxayi, qofka nool qubaysku waajib kuma noqonayo, ilaa biاljanaabati, bisababi اljanaaba, janaabada sababteeda ma ahani. wuxuu rabaa sheekhu marka hore inuu noo soo hormariyo asbaabta qofka muslimkaa qubaysku waajib ugu noqdo. qofka muslimka qubayska waxyaalaha uu waajib ugu noqdo ama sababta keeni kara waxaa ugu soo horeysa aljanaaba. janaaba keenaysa, yacni qofku inuu janaaboodo.
qofku hadduu isku janaaboodo ama ha noqdo qof raga ama haweeney ha noqdo marba hadduu janaaboodo dee markaa waxaa waajib ku noqonaya inuu qubaysto wuxuuna u qubaysanaa kayfiyada soo socota qaabka soo socda ayuu u qubaysan awil wilaadati ama dhalidii ma ahani sababka labaad ee qubayska waajib ka dhiga waxaa weeye haweeneydii hadday wax dhasho haweeneydii haddii ay wax dhasho waxa ay dhashay ha noqdo cunug dhammaystiran carruur dhammaystiran ayay haweeneydii dhashay ama dhicisay dhashay wax dhicisay dhashay oon dhammaystirnayn waa isla mid marba haddii haweeneydu ay wax dhasho waxa waajib sharcigu uga dhigay inay qubaysato ayaa waajib markaa nifaaskii hadduu dhiiggu uu ka go'o markuu nifaasku ka go'o qubayskaasi iyo qubayskani waa kala labo haweeneydu markay dhasho ama ha noqdo cunug dhammaystiran ama ha noqdo carruur dhicisa ha noqdo marba hadday dhasho qubaysku waa waajib dhalidaasaaba qubayska waajib ka dhigaysa nifaaska markii laga qubaysto dhiig umulaadka laga qubaysanaya waa qubays labaad shaqo iskuma laha wa midluhaa ilqaa'u calaqatin wa mudqa saas awgeed sharxu wuxuu ku leeyahay waxaa la mida haddii xinjir ama cadi hiliba ay soo riddo haweeneyda ay dhasho waa isla mid wax dhammaystiran ama wax dhicisa isla mid walow min gayri balalin walow kaanat ilwilaada dhaliddu haba noqoto hadday doonto min gayri balalin qoyaan la'aanba ha noqoto xataa carruurkii biqudrati illaahi ilaahay awooddiisii subxaanahu wa tacaala carruur waxay dhashay iska qallalan ilaahay qudradii awooddiisa oo wax qoyaana aan lahayn qoyaanku shardi ma aha carruurku inuu qoyan yahay shardi ma aha xataa hadduu qallalan yahay carruurka ay dhashay qubaysku waa waajib ha qoyanaado ha qallalnaado qubaysku waa waajib wey mar walbaba aw inqidaaci alxaydi aw innifaas xaydkii go'iddiisii aw innifaasi ama dhiig umuleedkii go'itaankiisii ayuu qubaysku ku waajibaa waxyaalaha qubaysku sababaha uu ku waajibo waxaanu soo qaadanay janaabo dhaliddii sababka saddexaad ee kan afaraad waa xayd ama nifaas haweeneydii xaydkiiaa ka go'ay dhiiggii caadadiiaa ka go'ay dhiiggaa hadduu go'o waa waajib qofka haweeneyda muslimadda inay qubaysato waa waajib hadduu dhiig umulaadku uu ka go'o oo dhiiggii nifaasku uu dhammaado uu istaagana ayadana waa waajib haweeneyda inay qubaysato marka janaabo maxaa loola jeedaa waxaan soo qaadanay laa yajibu alguslu cala alxayi ila biاljanaaba qof nool qubaysku kuma waajibo muslima ilaa inuu janaaboodo mooye janaabadaas maxay ku iman kartaa wuxuu ku yidhi sheekhu wataxsulu اljanaabatu janaabadu waxay ku xasili kartaa ima bidukhuuli اlxashafa xashafadii geliddeedii waa muqadamu yacni dakari rajulu waa ninka cawradiisa meesha ugu horraysa waxaa la yidhaha xashafa meesha ragga laga gudo meesha maxalulkhitaanka ah maxalka ragga laga gudo ima bidukhuuli اlxashafa gudniinkii maxalkii gudniinka maxalkaas gelitaankiisii aw miqdaariha miqdaari اlxashafa ama xashafadaa qadar la eg gelitaankiisii fii qubulin qubulkaas uu dhex galo waa cawrada haweenka uu dhex galo xashafadu ay dhex gasho ama xashafadii haddii aysan joogin qadar la eg haddii cawradii dumarkii la dhex geliyo saasay janaabadu ku iman kartaa janaaba macnaheedu waa intaas janaaba macnaheedu saas way ku iman kartaa wataxsulu اljanaabatu janaabadu waxay ku xasishaa ima bidukhuuli اlxashafa maxalkaa gudniinka gelitaankiisii aw miqdaariha miqdaari اlxashafa ama maxalkii gudniinka qadarkiisii qadarkaas geliddiisoo fii qubulin qubul uu dhex galo aw amase duburin ama daba uu dhex galo qubulka shardi ma aha daba hadduu dhex galo xataa qubaysku waa waajib waa janaaba waxaasoo dhan duburka hadda waa xaaraam xataa haweeneyda aada qabto in ninka raggaa dhinaca duburka uu uga yimaado uu ka geliyo xashafadii wixii la mid a waa xaaraan nebiguna waa lacnaday sala allahu calayhi wasalam malcuunu laakiin waxaa laga hadlayo lacalla hadday dhacdo wey xukunkeedu maxay noqon waxaa laga hadlayo masaladu waa bannaan tahay loolama jeedee haddii xaaraantaas qofka uu ku dhaco xaaraantaas lacalla hadduu ku dhaco xukunku maxay noqon qubays ma ku waajibi waxa laga hadlayo qubaysku waajibu walow libahiimati neef xoolaaba ha geliyo neef xoolaaba xashafadu ha gasho hadday doonto neef xoola ah
يعني قف ضمير دينيد يمد بن آدم لبضب أي كدنتين ضمير دينيدنا مال مد بن آدمنا ملهن ناف حوله أتجي وضبدي سحشفدي وقليي قباس هو واجب waxa laga hadlay taas waa xaraan oo zino kale laakiin waxa laga hadlay qubaaski ma waajibi mise ma waajibayo waxa kitaabku ka hadlay qubaaski waa waajib hatta bahimaha duu galiyo qofku waajibu wa lam yahsul walaw lam yahsul yusam bahasil inzal masha inzal sharh u dhigayo inzal way bikasr alhamza walaw wa lam yahsul yusam bahasil inzal man dajin qofkii mani ama biyo yeysan ba ka imaan haduu doono shardi ma aha inay wax yimaadaan marba hadii xashafadii maxalkii gudniinkii la dhex galiyay awradii la dhex galiyay waa waajib qubayska maxaa xadiiskii imaam muslim oo saxiixiisa ku warinayay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri idal taqal khitaanani faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil labada gudniin hadii ay kulmaan qubaysku waa waajibay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa in lam yunzil qofku yuusan bamaniyu ka imaan haday doonto waa xadiiska imaam muslim oo saxiixiisa ku warinay marka inzaal shardi ma aha gelintaas ayaa qubayska waajiba wa imma janaabadu waxay ku iman kartaa asbaabta janaabada ay ku iman kartaa wa imma binuzul almani ama manida soo degitaankeedii maniya qofkii ka timid ama nin rag ha noqdo ama haweeney ha noqdo asagoo waxba gelin isticmaal aan sameeynin ayaa maniyo qofkii ka timid taasina janaabadu way ku iman kartaa oo waxa waajibay isagana qubayski walaw bighayri ilaajin walaw kaana nuzul almani manida soo degitaankeedu haba ahaado bighayri ilaaj gelin la'aanteed ba ha noqdo iyadan waxba la gelin ayaa maniyo ka timid ninkii ragga ahaa ama haweenaya maniyo ka timid waa waajib qubayski wadaalika kal xaasili manidii xasishay oo kale si nawmi hurdada dhexdeeda ku xasishay oo ninka asagoo iska hurday ayuu ru'yooday maniya ka timid ama haweenayda iyadoo hurdaysa ay ru'yootay maniya ka timid waa waajib qubaysku ragii ha noqdo ama haweenayda ha noqdo waajib weey mar walbaba waa masaladii maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhii saxaabiyada ay weydiisay oo tii rasuulka ilaahayow يعني haweenayda wax miya ku waajibayo qubays hadii marka mani ay ka yimaadaan ama biyo ay ka yimaadaan nabiga sallallahu alayhi wasallam nacam uu yiri innamal maa min almaa maxaa kale waladka laga abuuraa waladka maxaa kale laga abuuraa manidaas laga abuuraa manida ragga iyo manida dumarka oo kulmaya umba waladka laga abuuraa marka haweenaydii har ru'yoota ama ninku har ru'yoodo waa islamid mar walba qubaysku waa waajib walaw bighayri ilaajin kal haasil fi an-nawm intaas marka sheekha wuxuu uga baxay waxyaalaha waajibinaya ama qubayska keeni kara oo qofka calal hayy wuxuu ka tagay sababkii kutubka kale aan ku soo mari jirnay oo ah al-maut dhimasho laano markii hore sheekhu wuxuu sheegay inuu ka hadlayo ahkaamta qofka nool qof nool way waxa laga hadlay ama maut yani asbaab wujub al-ghusl uu kamid yahay laakiin qofkaas uu dhintay waa gooni xukunkiisa oo loo mayriyo dadkii noolaa ay waajib ku tahay inay u qubayaan oo ay mayraan وله وحو اسكليهي للغسل قبيسku wuxuu iskaleeyahay fardaani laba waajib halkan marka waxaan ka qaadanaynaa sheekhu noogu sheegi qubayska sidee loo qubaystaa habka loo qubaysanayo sharcigu waajib uu ka dhigay laba waajib qofku waa inuu ilaaliyo markuu qubaysanayo qubayska waajib ka qubaysanayo waa inuu laba waajib ilaaliyo walahu qubaysku wuxuu iskaleeyahay fardaani laba waajib labada waajib oo la yasixu qubaysku uu sanan saxayn illa bihima labadaas waajib ma ahan illa bihima bi ri'ayatihima labada waajib ilaalintooda ma ahan si kale qubaysku uu san ku waajibay labadaas waajib oo la yasixu al-ghusl qubaysku uu sanan saxayn illa bihima bi ri'ayatihima labada waajib ilaalintooda ma ahan si kale qubaysku ka ansaxay hadaadan labada waajib ilaalin oodan xaq dhowrin الأول واجب كوجه الرأي النية والنية واجب كوجه الرأي قفك مركو قبيس كواجب كقبيسنا وين النية اللي هذا محيلي عمل أنصح يمجر نية الآن نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحير إنما الأعمال بالنيات أعماش ودن وحيكو أنصح النية مركا قبيس كنا وحوجه الرأي وأعماشي أي كحرنيت صلاة أنصحتان كذي sidaas awgeed marka qofku markuu biyaha isku bilaabay
meeshuu doonaba ha ka bilaabo sida sunnada waa inuu madaxa ka bilaabaa sunna markuu qubaysanayo laakiin xataa hadduusan madaxa ka bilaabin meel kale uu ka bilaabayo biyaha markuu isku bilaabayo inuu niyo la yimaado xilligaas wakhtigaas niyada lala yimaado waajib isagaaba sheekhu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay maqruunatan xaal lala xiriiriyey niyada biawali juz'in qaybta ugu horraysa laga xidhiiriyey juskaasoo yaqsiluhu jusku qofku uu dhaqayo min jasadihi jirkiisa uu ka dhaqayo meesha ugu horrayso mayrayso ood dhaqayso marka xilligaasaad niyada la iman haddaad madaxa ka bilaabayso haddaad lugaha ka bilaabayso haddaad garab ka meeshii aad ka bilaabayso meeshaas wey meesha aad niyada mar walbaba aad kula imaanayso haddii marka qofku niyo la'aan uu iska qubaysto leanna waxaa weeye niyada in badanna waan soo qaadanay sababta sharcigu u jideeyey in la niyeysto acmaasha waxaa weeye waa altafriiq bayna alcaada waalcibaada waa in la kala sooco oo la kala saaro caadada iyo cibaadada waa in la kala sooco oo la kala saaro caadada iyo cibaadada qofku waxaa dhici karta si caadiya inuu isaga qubaysto isagoon cibaado ula jeedin ama qubays waajiba iyo aan ula jeedin inuu caado ahaan isaga qubaysto nadaafa ahaan inuu ula jeedo iska nadaafado ama waxaa dhici karta inuu qabow ula jeedo inuu iska qabowsado biyaha uu ku qabowsado kaas iyo maxaa kala saaraya qubayskii waajibka ahaa inaad qubays waajiba aad qubaysanayso iyo qubayskii nadaafadda aad ugu tala gashay maxaa lagu kala ogaanaa qubayskana nooca uu yahay waxaa lagu kala ogaanaa inuu qubayskani waajib yahay niyo marka sidaasaa sharcigu wuxuu waajib ka dhigay in la niyeysto qubayska in la niyeysto ayuu sharcigu waajib uu ka dhigay si caadada qubayska caadada ah iyo qubayska cibaadada loo kala saaro maqruunatan xaalay tahay niyadu mid lala xiriiriyey biawali juzin qaybta ugu horraysa lala xiriiriyey juskaasoo yaksiluhu juska qofku uu ka dhaqayo min jasadihi jirkiisa uu ka dhaqayo wa yanwi lmuqtasilu halkan marka waxaa laga hadli niyada nafteediiya cilmi u baahan maxaan niyeysanaa wey marka hala niyeysto waa la yidhi maxaan qalbiga gashanaa maxaan niyeysanaa wa yanwi lmuqtasilu qofka qubaysanaya wuxuu niyeysanaa rafca alxadath xadadku waa janaabadaa loola jeedaa janaabada iska koryeelideedii alxadath alakbaraa loola jeedaa halka alxadath alakbar janaabadaa iska koryeelideedii xadadka saaran oo janaabadaa inuu iska koryeelayo saasuu niyeysan aw amase wuxuu niyeysanaa farda algusli ama qubeys waajib ah qubeys waajib ah ama wuxuu niyeysanaa inuu qubaysanayo qubeys waajib ah aw naxwa dalika almadkuur ama kaa la soo sheegay wax la mid ah ayuu niyeysanaa oo waxa la midka maxay tahay ka an yanwiya waa inuu niyeysto istibaaxata muftaqir ilaa guslin wax qubeys u baahan inuu bannaysto ayuu niyeysan kalqiraa'a qur'aan akhrin oo kale ilaa qur-aankii lama akhrin karo adigoon qubaysan oo janaabadii aan ka qubaysan bikhilaafi naxwi cubuuri ilmaa laakiin khilaafsan qofku hadduu qubayskii u niyeysto masaajidka inuu maro ou ka gudbo masaajidka dhex maro masaajidka dhex maridiisii qubays la'aan markii horeba iska bannaanayd oo mugtiyaa la diidi inaad ku nagaatood fadhiisato ayaa la diidiyey dariiqa inaad ka soo gasho iridda kale uga baxdo waa fasax sharcigu uu ku ogolya taa marka ma kaafinayso niyada wathaani midka labaad waajibka labaad ilaa waxaanu soo marnay qubaysku wuxuu iska leeyahay laba waajib hal waajib waan ka soo hadlay waa niyo waajibka labaad tacmiimu jasadihi jasadi almuqtasil qofka qubaysanaya jirkiisii jirkaas kala gaarsiintiisii wey bilmaa'i biyaha la kala gaarsiiyo waa in jirka dhan biyaha lagu camimo oo la kala gaarsiiyo daahiran min daahirin xagga daahirkii jirka daahirka waa in la kala gaarsiiyo faqad oo kali ah jirka intiisa muuqata oo daahirka ah oo bannaanka taalla jirkaaga in biyaha la kala gaarsiiyo waajib wey faqad muxuu ula jeedaa daahirka inta muuqata oo daahirka ah faqad oo kali ah oo maxaa la diidan yahay wixii jirkaaga ilaahayba kuu qariyo wixii qarsoon oo gudaha ku dhex jira dee kaas biyaha in la gaarsiiyo sharcigu maba amrinba ma amrin in sharci la kala gaarsiiyo dhuunta dhexdeedii iyo wixii dhuunta gudaheeda hoose iyo waxaasoo kale waajib ma aha
intan muuqatay jirkaaga bini aadamku ka arki karo ayaa waajiba inaad biyaha kala gaarsiiso wa shacarihi wa tacmiimu shacarihi shacari lmuqtasil qofka qubaysanaya tintiisii tintaas gaarsiinteedii biyaha la gaarsiiyo daahiran min daahirin xagga muuqaalka laga gaarsiiyo wa baatinan meeshan ow sharxu uu qorayo wa baatinan min baatinin gudahana laga gaarsiiyo tintii bilmaa'i biyahana la gaarsiiyo maratan hal mar un in la kala gaarsiiyaa waajibay maradaasoo waaxidatan ee keligeed markii dhinaca tinta la yidhaaho tinta iyo jirku yacni farqiga u dhexeeya waxaan soo qaadanay uu sheekhu inoo soo sheegay jirka waxa biyaha in la gaarsiiyo ay waajib tahay waa inta daahirka ah oo muuqata amaa tinta korkeedii midda baadinka ah ee gudaha oo tinta hoosteeda ah jiridda tinta in la gaarsiiyo waa waajib daahiran wa baatinan maalan qofku hadduu leeyahay tin badan hadduu leeyahay ama gar weyn uu leeyahay hadduu yidhaaho garka intiisana daahirkan kore ayaan biyaha marmarinaa markaan qubaysanayo qubays waajiba garkan qaybtan koraan biyaha ka marmarinoo biyihii jirka hoose ma gaarsiinayo iyo tintii baadinkeedii ma ansaxayo qubayskiisi daahiran wa baatinan waa inaad gaarsiiso tinta bilmaa'i biyihiina la gaarsiiyo maratan hal mar la kala gaarsiiyo maradaasoo waaxidatan ee keligeed ah haddii hal mar jirkaaga oo dhan macaltintii biyihii hal mar ay kala gaarayaan mar labaad waajibkuma aha inaad biyihii ku shubto mar labaad waajibkuguma aha inaad biyihii ku shubto laakiin tintii haddii hal tin oo ka mid ah qubayska waajibka ah hal tin oo ka mid ah hadday qalalanta hal tin oo ka mid ah jirkaagii hadday ka qalalan tahay qubayskaasi ma ansixin qubayska hadduusan ansixinna salaadaadii aan ansixayn marka waa in qofku markuu qubays waajiba uu qubaysanayo waa inuu aada inuu dadaalo wayajib waxaa ku waajibaya cala almuqtasili qofka muqtasilka ah oo qubaysanaya waxaa waajib ku ah an yatacasara inuu israariciyo ayaa waajib ku noqonaya inuu israariciyo ee yastakhrij maa fi dubur sida dabada waxaa ku jira ay u soo baxaan ka an yurkhiyahu waa inuu raariciyo waa inuu israariciyo si waxa ku dhex jira dabada ay bannaanka u yimaadaan waajib oo maalan ulajeedada masaladan sheekha uu ka hadlayo waxaa weeye an yatacasara inuu israariciyo oo yacni si ay wixii baadinka u jiray dabada ay ka soo baxaan xataa tanfatixa si ay u furanto xalqatu duburihi dabadiisa wareegeedu si wareeggaas u furmaan waa inuu israariciyo xoogaa ilaa isagoo taagan wareeggii dabada ma furmayo wareegga dabadii ma furmayso asagoo taagan marka dabadii in la dhaqana waa waajib dabadii in la dhaqo inta daahirka in laga dhaqo waa waajib see ku suurtogeli marka dabadii in la dhaqo inta daahirka waxay ku suurtogeli qof xaajo gudanayo ama yacni saxaroonaya ama kaadinaya inaad iska dhigto ood fadhiisato si caadiya sidii qof saxaroonayoo kale waa inaad u fadhiisato markaad fadhiisato markaasaad astajooni sidii qof wax iska mayrayo oo kale astajoonaya ayaad iska dhaqiyo markaa aad fadhiisato wixii bannaanka dabada qaybta imanaysa dabada qaybta bannaanka imanaysa inaad biyaha qaybtaa gaarsiisana waa waajib amaa sida dadka qaarkood ay sameeyaan qofku hadduu sameeyo oo maalan dadka qaar waxay samaynayaan qubays waajiba ayaa galay markaasa waxaa laga yaabaa qaybtii uun maxalkii kaadidu ka imanaysay maxalkaas bis inuu dhaqo maalan waa qofaan saxara qaban oo kale waa istajoonaa qaybtii kaadidu ka imanaysay bis uu yacni mayraa intuu istaagu biyihii isku shubay marka waa dabadiioo markaas isku dhegan oo taagan ilaa qofku markuu fadhiisto ayaa xalqadiisa meesha maaragtaa uu ka saxroonayay markaasi bannaanka imaanay intuu taagan yahay meeshaasi way daboolanta meeshiioo daboolana qofku isagoo taagan ayuu biyihii isku shubi marka saasuu musqushii uga soo baxaa iyadoo jirkii qayb ka miduhu aysan biyihii gaarin waa qaybtii daahirka ah qubayskaasi ma ansaxayo hadduusan qubayskaasi ansixinna salaaddii aan ansixin lidaalika meeshaa si gaara inuu qofku u fiiriyo waa laga maarmaan waa inaad iska dhigto qof saxaroonayo kale fadhiiso astajo marka meesha adigoo weliba astajada u niyeysanaya biniyati rafci alxadath qubays waajib adigoo u niyeysanaya meesha aada mayri si markaas jirkiisii oo dhan qof u mayray aad u wada noqotid dhammaan
ويجب واجبا على المغتسل قفك قبيسنا وحكو واجبا أن يتعسر إنه إسرارعيه ضبط رارعيه حتى تنفتح إلى أي كفر ميسو حلقة دبره ضبدي سوريق أي كفر ميسو ويغسلها ونكدق أي حلقة الدبر ضبط وريق وكدقه عن الحدث حدث كينا وكدق حدث كوا جنابدي إلا ماشى نفتد الجنابة كجرت جنابدي ماشى وينو كدقه حلقة الدبر وعلى الأنثى هوينيدنا وحا واجب ku ah an taghsila inay dhaqdo ma ayladii ki yadharu kam muuqanay minha haweenayda xaggeeda ka muuqanay inda quudiha haweenayda fadhigeeda agteedana muuqanay ala qadamayha labadeeda lugood markay ku fariisato wixii cawradeeda ka muuqanay inay iyaduna dhaqdo waa waajib aydan laabasho sidii masaladii hadda aan soo marno kale masaladii duburka oo dabada hadda aan soo marnay habka loo dhaqayay haweenaydana waxa waajib ku ah markay meesha ay ka kaadinayso inay markaa iyaduna ay fariisato si markaa ay fariisato inta banaanka imanaysa meesha cawradeeda ay ka kaadinayso markay fariisato inta banaanka imanaysa inay dhaqdaa waa waajib markay qubaysanayso fa inna dhalika almadhkur waxaas aanu soo sheegnay oo dabada wareegeedii iyo haweenayda markay fariisato cawradeeda inta ka muuqanaysa waxa la soo sheegay kullahu kull almadhkur ka la soo sheegay kulligiis min daahir aljasadi jirka daahirkiisu ka mid yahay wixii daahirkii uu ka mid yahay in la dhaqo ay waajib ahayd daahirkii in la dhaqo ay waajib ahayd ayuu kaasi ka mid yahay mar walba falaw taraka qofkii hadduu ka tago almuqtasil qofkii qubaysanayay hadduu ka tago oo waxa ka maqan mafcuulkiya meesha laga xadfayo falaw taraka almadhkuru qofkii qubaysanayay wixii hadda aan soo sheegnay uu ka tagay waxaan soo sheegnay maxay ahayd waa dabadii in la raariciyo oo la mayro meesha wareega haweenaydu inay fariisato oo cawradeeda inta banaanka imanaysa meesha ay ka kaadinayso inta banaanka imanaysa ay ka dhaqdo arrimahaas qofku hadduu iska dhaafaba oo uu ka tago fil ghusl qubayska dhexdiisa hadduu uga tago wixii aan soo sheegnay walow nisyaanan halmaanba ha uga tago lam yasix al ghusl qubayska ma ansixin qubayska meelaha aan yiri si gaar ah loo mayro si gaar ah loo fiiriyo hadduu soo qofku si gaar ah meelaha uusan u dhaqin halmaanba haba uga tagee qubayski ma ansaxayo wal afdalu sida fadli badan meelaha labadan meelood oo cawrada aanu soo sheegnay oo niri si gaar ah waa in loo dhaqo qofku wuxuu dhiqi karaa xilligu doono jirka kale markuu soo mayro iyada waa ugu daba marin karaa hadduu kale karabana iyadu ugu hormari karaa markaa ka bacdi uu jirka kale mayri karaa laakiin sidee fiican waa sidee wal afdalu sida fadliga badan an yaksila waa inuu dhaqo haadayni labadaas oo almaxallayni ee maxal labada maxal oo hadda aan ka soo hadlaynay waa xalqatu duburkii iyo haweenayda inta ka muuqanaysa cawradeeda markay lugaheeda ku fariisato labada maxal qofku inuu dhaqo ayaa waajib ah qabla jasadihi ayaa fadli badan wal afdalu sida fadli badan an yaksila waa inuu dhaqo haadayni labadaas oo almaxallayni ee maxal qabla jasadihi qabla ghusli jasadihi jirkiisa kale intuusan dhaqin ka hor labadan horta marka hore ha hormariyo sida fiican labadan marka hore ha hormariyo biniyatina uu ku dhaqo niyu weliba ku dhaqi niyadaasoo takhusuhumaa labadan maxal khaas ku ah labadan maxal si khaasa ha u niyeysto hana dhaqo si gooniya ha u dhaqo hayra niyadii maahane niyadaasoo calaa baqiyati اljasadi jirka baaqigaa dushiisa ahaatay niyadii jirkan weyn aada u niyeysanaysa mooye niyo gaara ku dhaq sida fadli badan saas wey labada maxal marka hore dhaq horta qof istajoonaya iska dhig labada maxal marka hore dhaq marka istajooto oo labada maxal aad istajooto oo niyo khaasa aad la timaadid oo rafcul hadath aad u niyeysato labadan meelood naftooda janaaba saaran janaabadii inaad labadan meelood ka mayrayso aad u niyeysatid markaa ka bacdi jirka kale fiihi ku shub waa sida sunnada ah oo uu nabigu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi saasuu nabigu amray sala allahu calayhi wasalam in loo qubaysto wa sunanu lgusli waxaan ka soo baxnay laba waajib oo qubaysku uu leeyahay laba waajib maxay ahayd anniya iyo tacmiimu اlbadan labadaas bisaa waajiba in la niyeysto
jirka dhanna biyaha la wada gaarsiiyo labadaas way waajib wuxuu leeyahay aadaab marka aadaab ayuu iska leeyahay ama sunnooyin ayuu qubaysku leeyahay qofku hadduu la yimaado ajir badan uu helayo laakiin qubayskii hadduu ka tagana qubaysku waa u ansixi laakiin ajir badana dhaafay wa sunanu lgusli qubayska sunnooyinkiisu kaiiratun way fara badan yihiin minhaa sunnooyinkaas waxaa ka mid ah alwuduu weesaqaad kaamilan xaaluu yahay weesaqaadku mid dhammaystiran qabla algusli qubayska ka hor uu weese qaato waa sidii nabigu uu samay jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fii aktar axwaalihi sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu alayh wasalam qubays waajib ah hadduu ku dhaco marka hore waa weysaysan jiray weesuu ka hormarin jiray nabigu sala allahu alayh wasalam weesadaasi waa weese kaamil ah weese kaamila wey waa weysaysane markaa weese qaadatid markaas ka bacdi ayaad qubaysan laakiin marka hore waxaa fiican qofku weesadana waxay nafci kuugu yeelan kartaa haddaad doonayso inaysan maaragtaa kaa burin waxay nafci kuugu yeelan kartaa marka hore qofku inuu astajoodo marka hore qofku inuu astajoodo labada maxal niyadii rafcalulxadadna uu ku dhaqo labadii maxal aan soo sheegnay marka astajadii ay kuu dhammaato markaas ka bacdi weese qaado weese caadiya weesayso kaamil ah weese kaamila markii oo niyadeedii iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii aad u dhammaystirtay aadin markaa ka bacdi aad weysaysatay qubayskii jirka dhan biyihii marka ku shub adoo niyeysanayo waxaa markaas kuu bannaan inaad salaad hore ka gasho leanna maxaad haysataa weesaqaad kaamil ah oo wax naaqida aadan samayn wax buriyana ma aadan samayn weesadii leanna cawradii ma taaban hore waxaan usoo sheegnay istajadii aan hormarinay cawradii ma aadan taaban leanna markii hore qofku uu ku talagalay istajadii hormariyey waa sajooday niyuu ku dhaqay markuu niyadaa ku dhaqay markaa ka bacdiyu haddana weesaqaad kaamila uu weese qaatay weesada markuu kaamil samey markaasuu haddana wuxuu niyeystay rafcalxadad jirkii intii kaleo baaqiga ahayd saasuu ku mayray allahu akbar waad dhihi kartaa markaas saad waad xihan kartaa wadalku acdaa'i almuqtasil qofkii qubaysanaya xibnihiisii xibnahaas marmarintoodiiyo biyaha la marmariyo ayaa sunnooyinka ka mid a biyaha inaad gacmaha ismarmariso waa sunno haddii biyihii aada isku shubto jirkii ay wada gaaraan laakiin waxba aadan ismarmarin waajibkii waa kaa dhacay laakiin maxaad ka tagtay sunno weyn aad ka tagtay ismarmarintu waa sunno walibtidaa'u bilowgiiya sunnooyinka ka mid a bishiqi dhinaca lagu bilaabo markaad qubaysanaysa dhinacaasoo alaymani ee midigta ah dhinacaasoo min jasadihi jasad almuqtasil qofkii qubaysanayey jirkiisii ka mid a waxaa kaloo sunno ah dhinaca midigta ah biyaha inaad ku shubtid midigtuu ku bilaabi jiray nebigu sala allahu calayh wasalam dhinaca midigtuu ku bilaabi jiray nebigu sala allahu calayh wasalam dhinaca midigta ku shub markaa ka bacdina dhinacii bidixdii biyihii isaga shub leanno mar walbaba waxaa sharaf badan midigtaa lagu hormariyaa wixii wanaag oo dhan wixii khayr oo dhan midigtaa lagu hormariyaa wa tacmiimu jasadihi ayaa la sunneeya sunnooyinka waxaa ka mid ah jirkiisa kala gaarsiintoodiiyo bilmaa'i biyaha uu kala gaarsiiyo 3 maraatin 3 goor uu kala gaarsiiyo waa sunno kala gaarsiintu waa waajib laakiin sunnada maxaa loola jeedaa 3 weeye waxa sunnada ah 3 goor inuu biyihii isku shubo sunno weeye waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii ayaa sunnooyinka ka mid a xaalata guslihi qubayskiisa xaaladiisa inuu qiblada u jeesto qiblada uu la qaabilo qubayska ayaa sunno ah laakiin sunnadaasi goormay iman marka lagu leeyahay markaad qubaysanayso qiblada qaabil marka lagu leeyahay haddii cawradu ay ku asturan tahay in kaana mastuura alcawra waa cawrada hadday ku asturan tahay wa ilaa falaa yastaqbiluhaa adigoo qaawan qibladiisi aad u karaamayso ood u sharafto adigoo qaawan qibladii u jeesan maysid haddaad doonayso sunnada inaad oofiso waa in maro yaroo khafiifa aad ku qubaysatid oo biyihii aad iskula shubtid markaas way markaad qibladii aad la qaabilaysid hadda waa sida nabigeenuna samay jiray sala allahu calayh wasalam kitaabka bukhaarigana mar aanu soo maraynay kitaabulgusl aan ku soo qaadannay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye maruu ku qubaysan jiray maro khafiifa ayuu markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku qubaysan jiray isma qaawi jirin nabiga sala allahu calayh wasalam markuu qubaysanayo waana sidaasoo waxaa weeye waxaad arki dowladahan eeshiyaankana saasay u badan yihiin dowladaha eeshiyaanka waxaad arki
hadda maalan bakistaaniyiinta oo kale hindiga oo kale qaybahooda muslimkaa markay musqulahooda gelayaan oo qubaysanayaan maray qaadanayaan dhexda ku xidhayaan maradaasi musqushii dhex gelaya markaas isku qubaysanayaan si markaa loo oofiyo sunnadii oo ujeesadkii xagga qiblada loo jeesanayo واستقبال القبلة قبلة قابلية دي وهي حالة غسله قبيسكيس حالديس oo qiblada u jeesto waa hadii cawradu asturan tahay ويحرم halkaas waxaan ka soo baxnay qubeyska waajibaadkiisii iyo waxyaalaha qubeyska waajib ka dhiga iyo sunnooyinka qubeyska ayaan soo marnay halkan waxaanu ka qaadanaynaa marka qofku hadii janaaba ay ku dhacdo ama asbaabtii aanu soo marnay janaabadii aan soo marnay ay ku dhacdo maxaa xaraam ka ah xaraam waxyaalaha ka ah intuusan qubaysan maxaa xaraam ka ah ويحرم waxa xaraama بالجنابة بسبب الجنابة جنابة sababteeda waxa xaraam ku ah qiraa'atu القرآن quraanka akhrintiisi ayaa xaraam ah qofka janaabada qaba quraanku waa ka xaraam laana quraanku wuxuu u baahan yahay inuu qofku karaameeyo waa kalaamullaahi alqadiim ilaahay hadalkiisii way qadiimka ahaa marka xushmadu kugu leeyahay xushmadiisa waxa kamid ah oo ilaahay uu ku xushmeeyay in la xarimay qofka junubka ah laga xarimay inuu quraanka akhriyo xaraam ila xadiiskii tirmidhi waa kii ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri la yaqra'u al-haa'id wala al-junub shay'an min al-Qur'an la taqra'u al-haa'id wala al-junub shay'an min al-Qur'an haweenaydii xaydka qabtay iyo qofkii janaabada qababa shay'an min al-Qur'an wax quraanka kamida ma akhrin karaan uu yiri xadiiskii tirmidhi oo nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam imaam tirmidhi oo sunankiisa ku wariyay marka qiraa'atu al-Qur'an waxa weeye waa xaraan qofka haduu janaabo qabo wal mukthuna waa xaraan nagaashi aw amase at-taraddud kula laabasho fil masjid masaajidka inuu iska daaho ku nagaado xaraan inuu ku dhex laabto ku dhex warwareegana waa xaraam isaguna qofkii janaabada qabay wal muharramaatu kuwii la xarimay ayaguna waa xaraan bil hadathi bisabab al hadathi hadathkaasu al asghar yara adigoo weeysa qabin waxyaalihii xaraamta ka ahaan jiray adoon janaaba yaani ay kugu dhacdayna maxaad u malaynay min baabi awlaw hadath al asghar waan soo marnay qofka hadii weysada ka burto waxyaalihii xaraamta ka ahaan jirana xaraamay ka noqonaya xaraamay ka noqonaya waxa kamid aha mesela salaadii oo kale inuu salaad dukado ama ha noqoto salaad waajiba ama ha noqoto salaad sunna sujuud shukrigi waa la mid sujuud shukrigi iyo sujuud tilaawi iyo waxaas oo dhan xaraam ay ahaan jireen qofka xadadka asqarka xaraam dawaafkiya kamida waxyaalaha xadadka asqarka xaraamta ku ahaan jiray kacbada inuu dawaafo xaraam ay ahayd qofka janaabada qabana waa min baabi ula oo ka sii daran yahay laana xadath akbar oo isagu wata waxa kamid aha masul mushafki kitaabka quraan taabashadiisii xaraam ay ahayd qofka weysadu ay ka burtay kii janaabo qabana waa min baabi ula oo ka sii daran yahay isagu كتاب التيمم هذا مثل كتاب التيمم وبوريسيغا كتاب كيسي waxaan soo qaadanay oo soo baranay qoyska iyo ahkaamtiisi ayaan soo qaadanay halkan sheekha wuxuu ka guda gali booraysiga sababaha keena qofku inuu booraysto iyo ahkaamta guud booraysiga وهو رخصة مطلقا سواء كان لفقد الماء أو لا sababka loo booraysanayo ama biyo weytaha noqoto ama sabab kale ha noqoto la biyo weyto kaliya looma booraysto xanuuna kamid ah waxyaalaha loo booraysto qofkii jirkiisa inuu nabarro ku yaalaan ama xibnihii laga weyso qaadanayo xibin kamid ah inuu ka jaban yahay qofkii waxyaalaha hadduu qofku u booraysanayo waa mar walbaba waa rukhso booraysigu rukhso ilaahay ummadan uu siiyay wa min khusuusiyatina bikhilaafi man qablana min al-umam midda kale booraysigu wuxuu kamid yahay waxyaalaha lagu khaas yeelay ummadda nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ummadihii hore looma jidaynin booraysi ummadihii hore booraysi looma jidaynin fa innahum kaanuu laa yusalluuna fi safar bal kaanuu yaqduuna salaata idaa rajacuu ummadihii hore markay musaafir yihiin oo ay biyo waayaan ma dukan jirin sharcigoodu saas uu ahaa markay guryahooda usoo laabtaan iyo deegaanadooda ay salaadii soo qaday jireen markay soo laabtaan وكانوا إذا فقدوا الماء لا يصلون حتى يجدوه هذي بيا ويان مدو كنجرين إلى بيا إكهلان ويقضوا ما فاتهم وحي كتغنا وقضي جرين ولا يصلون بالتيمم بوريس أمديه هلوك مدو كنجرين كذا نقل عن تقرير العطار الشيخ عطار اللي رسال لقسو قوري تقرير كيسي سوقديسي مركا خصوصياتك وحكم ديهي
ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha lagu khaas yeelay uu booraysigu ka mid yahay laa yasixu tayamumu booraysi ma ansaxo bishayin shay in lagu booraysto ma ansaxo shaygaasoo min ajzaa'i alardi dhulka qaybihiisa ka mid a waxyaalahan dhulkan saaran laguma booraysan karo derbi ha noqdo dhagxaanta ha noqdo laguma booraysan karo waxa dhulkan saaran oo dhan ilaa bituraabi carro in lagu booraysto maahane turaabkaasoo alkhaalisi ee saafi ah oo nuurad iyo waxba aan lagu qasin shamiito iyo aan lagu qasin carro saafiya bisaa lagu booraysan karaa turaabkaasoo addaahiri ee haddana daahir ah carradu haddana waa inay daahir tahay waxaa kaloo shardi ah alladii turaabkaasoo lahu gubaaru boor iska leh carradu haddana waa in wax gacanta soo raacayo boor ah waa inay leedahana shardi shuruuddaas weeye waxa lagu booraysan karo waa inuu shuruuddaa leeyahay horta waa inuu turaab noqdo waa shardi turaab inuu noqdo waa shardi waxaan turaab ahayn oo aan carro ahayn maalan gidaarada oo kale iyo derbiyada oo kale iyo waxyaalaha dhagxaanta oo kale iyo laguma booraysan karo in kasta oo madaahibta qaybo bannaynaya ay jiraan sida madhabtii maalikiyada oo kale hadda maalikiyada waxay leeyihiin kullu ma اtasala biاlardi yajuusu tayamumu bih wax walboo dhulka la xidhiira sida geedaha iyo geedaha baxaya xataa waa lagu booraysan karaahay leeyihin gidaarada iyo derbiyada iyo waa lagu booraysan karaahay leeyihin waa maalikiyada imaam maalik ibnu anas fiqigiisii wey iyo sidii istinbaadkiisii laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay waxaan carro ahayn laguma booraysan karo carro waxaan ahayn laguma booraysan karo ilaa bituraab carro maahane wax kale laguma booraysan karo turaabkaasoo alkhaalisi ee saafi ah waa inuu yahay saafi saafiga maxaa loola jeedaa waa in shamiito iyo budo iyo wax la mida waa inaan lagu qasin iyo nuurad iyo kaasoo addaahiri haddana daahira carradu waa inay daahir tahay carro nijaas ah oo mutanajis ah laguma booraysan karo alladii turaabkaasoo lahu gubaar ee haddana iskale boor waa inuu boor leeyahay oo gacanta soo raacaysa carro aan wax booraba aan lahayn laguma booraysan karo bishardi an yanqulahu carrada inuu soo guuriyo oo uu soo qaato shardigeedu booraysigu ku ansixi karaa walow min alhawaa'i hawadaba ha ka soo qaato carro hawadan bidaysa hadduu doono ha soo qaatee waa in soo qaadasha jirto un soo qaadasha inay jirto waa laga maarmaan haddii soo qaadasha uusan samayn oo isagoo qofkii iska fadhiya ayaa wejigiisii carra ku soo biday wejigii carraa wejiga uga soo biday ewelba waan u socday yuu yidhi markaasuu ismarmariyey ma ansaxayso ilaa ilahi wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan طayiba atayamum lugatan huwa alqasdu ilahi wuxuu yidhi waa in lagu booraysto loo qasdo saciidan طayiba carro daahir ah marka qasadku waa shardi waa inaad u qasdo horta aada soo qaadato ood soo naqliso waa laga maarmaan wa an yakuuna waa inuu ahaado tayamumku booraysigu bacda dukhuuli waqti اlcibaada waktiga cibaadada geliddeedii ka bacdi waa inuu booraysigu noqdo allatii cibaadadaas oo yatayamamu laha cibaadada uu u booraysanayo waxaa kaloo shardi ah cibaadada horta aad u booraysanayso wakhtigeedii in la gaaray waa shardi saacaddan oo kale qofka hadduu yidhaha maqhribaan usii booraysanaa maqhrib oon la gaarin wakhtigiisii uu yidhi saacaddan oo wakhtiga casirka la joogo maqhribaan usii booraysanaa buu yidhi ma ansaxayo leanna booraysigu waa wax daruuro ah daruuradana waxaa lala sugaa wakhtigeeda daruura waa in wakhtigeedii la gaaro addaruura laa tuqadam calaa waqtihaa daruuro wakhtigeeda lagama hormariyo daruura o dhan waa saas wakhtigeeda lagama hormarin karo maalan hadda wuxuu sharcigu baneeyey qofkii hadduu wuxuu cuno waayo naftiisii u cabsaday inay naftu ka baxdo ayuu u cabsaday baktigii wuu cuni karaa daruura ahaan neef baktiya daruur ahaan wuu cuni karaa haddii uu ka baqo naftu inay ka baxdo uu halaagsamo laakiin haddaad tidhaaho ka warran gaajada birri i qaban doonta oo aan ka baqayo inaan birri dhinto ayaan bakti u cunaa hadda waad soo hormarisa soo maa daruuradii ba lama gaarin daruurada birri igu dhici doonta ayaa neef baktiga hadda u cuna hati ma ansaxay soo maha addaruura laa tuqadam calaa waqtihaa daruuro wakhtigeeda lagama hormariyo waxaad tidhi maqhribka soo socdaan hadda u booraysanaa maqhribka soo socda ayaan hadda u booraysanaa ma ansaxayso
wixii ba daruuraha waqtigooda laga hormarin karo wa an yakuna bacda dukhuuli waqti alcibaada waqtiga cibaadada gelitaankeedii ka bacdi inuu ahaado waa laga maarmaan oo waqtiga cibaadada yani marka la leeyahay tusaale ahaan haddii meyd oo kale salaatuljanaaza waqtigeeda goormuu galaa salaatuljanaaza waqtigeedu wuxuu geli waa markii meydka dhaqidii lagu dhammaystiro markaasaad u booraysanay haddaad doonayso inaad booraysato oo salaatuljanaaza u booraysato horta meydka dhaqidii ha lagu dhammaystiro markii meydka dhaqidii lagu dhammaystiro markaas way waqtigii salaatuljanaaza waqtigaasaa la gaaray wa asbaabuhu asbaabu tayamum booraysiga sababihiisii halaaatun saddex wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo maxaa keena in la booraysto waxaa keena saddex sabab ayaa alawal asabab alawal sababka ugu horeeya cadamu lmaa biyo weytow biyihii qofku inuu waayo biyihii ayuu waayey oo biyihii maba haystaba maba heli karo biyo hadduusan heli karin waa booraysan markaa wuxuu ku leeyahay shaarixa wa min asbaabi ibaaxati tayamum booraysiga bannayntiisa sababaheeda waxaa ka mid a maa idaa kaana biqurbihi maa biyuhu waa u dhow yihiin qofkii wayakhaafu low dahaba ilayhi hadduu biyaha aado wuxuu u baqi calaa nafsihi naftiisuu u baqiyo min sabcin dogaagu ka baqi libaax meesha biyihii ka sokeeya ayaa jira libaaxa ka sokeeya biyuhu waa dhow yihiin laakiin libaaxa ka sokeeya bahal kaloo dadka cuna ayaa ka sokeeya waa iska booraysanaa markaa ow caduwin cinda almaa ama cadow waa ka sokeeyo dad naftaadii ama maalkaagii khatar gelinayo ayaa ka sokeeya ow yakhaafu calaa maalihi aladii macahu ama wuxuu is leeyahay biyaha haddaad aaddo lacagta yarta ama lagaa furtaaho jiscinkan iyo oogaaga yaroo safarka u kaalmaysan lahayd ama lagaa furtaaho is leeyahay awilmukhallafi midkii looga soo tegey maalkii looga soo tegey fii raxli meeshii uu dego alaabta dhigtay maalku uga soo tegey ayuu wuxuu uga baqaa min khaasib aw saariq tuug u dabamareeya waa mid ka dhaca maalkii xagga uga soo tego awrtiisa uu uga soo tegey ama baabuurka uga soo tegey in loo dabamareeyo ka baqay hadduu biyaha aado asbaabta tayamumkay ka mid tahay iyadoo sababaha loo booraysanayay ka mid wathaani sababka labaad khawfu darari dhibka cabsigiisu biyihii wuu haystaa laakiin dhibuu ka baqay min isticmaalihi isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii wuxuu uga baqay dhibaato bisababi maradin jiro sababteed ayuu dhibaato uga baqay ow naxwi lmarad ama jirada wixii la mid ah oo kale ayuu ka baqay biyihii isticmaalkoodii oo maalan qofkii waa xanuunsan yahay biyihii wuu haystaa laakiin xanuun waxaa ku dhacay biyihii ay uga dirayaan nabroo kale ayaa jirkiisii ka soo baxay nabraa ka soo baxay dhakhtarkuna wuxuu u sheegay hadduu biyaha isticmaalo in xanuunkani ku ziyaaday ama nabrahan aan loo dhoweyn karin biyo intay ka raysanayo ama qofkii indhihii laga qalay oo kale inta badan dhakhaatiirtu ay sheegaan qofka haddii indhaha qalin looga sameeyo inuusan wejigii iyo indhihii biyo u dhoweyn karin biyo uma dhoweyn karo xanuunadaas oo kalea ku dhacay indhihii laga qalay ama nabraa ka soo baxay biyihii ma isticmaali karo qofkii waa xanuunsan yahay markaasoo kalena waa sabab keeni kara qofku inuu booraysto sabab keeni kara way qofkii inuu booraysto laakiin mar walbaba waxa weeye salaaddii mar walbaba lagama tegi karo salaaddii waa lagu cadaabi haddaad ka tagto leanna mar walbaba waxa weye haddaad biyo weyso boorayso haddii aad xanuunsan tahay oo nafro iyo ay jiraan ama qaliin lagugu sameeyey ama aad jaban tahay boorayso haddii aadan biyihii isticmaali karin laakiin dadaa waxayba iska tahaba wax yar wax bilaa sabab ahoon macno lahayn ayaa salaaddii looga tegey qofaa wuxuu waa jebi ama qaliina lagu samaynaa wuxuu leeyahay si aan maaragtaa u tukado maba hayaba anigaaba imtixaananba maxaan tukadaa uu leeyahay imtixaanka wuxuu uga bixi lahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ridihiisa iyo raxmaddiisa uu ku heli lahaa uu doonayo marka inuu iska xiro salaaddii waxay halis tahay markaasoo kalea la doonaya cibaadada in lagu dadaalo leanna waa asbaabtii lagu dhiman lahaa ayaa qofka ku dhacday markaasoo kalea la rabaa dadaal badan in la muujiyo dadaal badan markaasay culimmada salafka ay sii xoojin jireen cibaadadooda junayd albaqdaadi xanuunaa ku dhacay abulqaasim junayd albaqdaadi sheekhii la dhihi jiray baqdaadi heer ciraaqa sheekhii weyne caalimka ahaa zaahidkii markaasuu qur-aan akhriskii uu badiyey salaaddii iyo waajibaadkii iyo iskaba dhaaf kuwaas waa safka hore qur-aan akhriskii uu sii badiyey waxaa la yidhi maxaad isku dhibi
waqti adigaaba iska xanuunsan oo dhibaato ku jira markaasuu wuxuu yidhi al'aana tudwaa saxiifatii haddeeraa wuxuu yidhi xaashidaydii la laabiyo qofka hadduu dhinto ilaa warqaddii wax loogu qori lahaa waa la laabaa wax dambe loo qorayo ma jirto marka warqaddii wax laygu qori lahaayo la laabahayaa fa uriidu an amla'ahaa waxaan doonay inaan sii buuxiyo inta malaa'igtu aysan iga laabin marka waqtigaasaaba la rabaa qofku inuu dadaal bixiyo waqtigaasaa la rabaa bisababi maradin jiro sababteeda oo naxwihi naxwi lmarad ama jirada wixii la mida jirada maxaa la mid noqon kara jirada waxaa la mid noqon karaa ka an khaafa inqitaacan can irufqa wuxuu ka baqay inuu dadkii rafiiqyaalka ahaayuu la socday inuu ka go uu ka haro hadduu biyaha raadsado waa laga tegaya safarkii ayaa ka tegaya hadduu biyo raadsado low qasada almaa hadduu biyaha u qasdi lahaa safarkii ayaa ka tegay ow kaana fii safiina ama doonuu saaran yahay low istaqaa hadduu biyihii waraabo badda biyo ka soo qaado uu is yidhaaho lastalqaa fi lbaxri badduu ku dhici lahaa jeeguu badda uga dhici lahaa haduu yidhaha baddii biyaha ka qaado wuxuu ka baqayaa doontii intay dhaqdhaqaaq samayso inuu baddii ka dhaco ayuu ka baqaa marka waa booraysanaa marka waa inuu ku soo talagalo marka carradiisa uu doonta soo saarto haddii salaadu badda dhexdeeda ugu qabanayso waa inuu ku talagalo marka meeshii ku booraysan wathaalithu kan saddexaad sababka saddexaad ee ka mid ah asbaabta keenaysa in la booraysto ixtiyaaju lmaa biyihii baahidiisii weeye loo baahi qabidiisii biyihii loo baahdo lishurbihi liajli shurbihi cabitaankiisa la cabayo dartii loogu baahdo waa masdar mudaaf ilaa mafcuulihi masaadirtan oo dhan waa mafcuulkiiya loo adiifay ixtiyaaju lmaa biyaha loo baahashadiisii wey waxaa mudaaf ilayhigu waa mafcuulkii biyaha loo baahashadiisii biyihiyaa loo baahday maxaa loogu baahday lishurbihi haddana sidii ka dhig masdarun mudaafun limafcuulihi lishurbihi shurbi lmaa biyaha cabiddiisii asaga la cabayaa loogu baahday biyihii waa yaallaan laakiin waa biyo baahi loogu qabo in la cabo wax kaloo la cabo lama haysto biyaha yarkaa meesha ku jira maahane wax kaloo la cabo lama hayo ow amase shurbi xayawaanihi ama shaksiga xayawaankiisii xayawaanka cabiddiisii loogu baahday xayawaankaasoo almuxtarami la xushmeeyey ama biyihii asagu uma baahnee xoolihiia u baahan xoolihii uu dhaqaalaysanayey ayaa biyahan cabitaankii u baahan xooluhu inay hadda u baahan yihiin shardi maaha berriyay u baahanayaan saa dambay u baahanayaan haddii laisleeyahay waa laga booraysanaa markaas naftaa si loo badbaadiyo naftaa muxtaramka ah si loo badbaadiyo waxay ka mid tahay shareecadeenna naxariisteeday ka mid tahay naxariista shareecadeenna ka mid tahay ow shurbi xayawaanihi almuxtaram xayawaankiisii la xushmeeyey cabiddiisii waxaan kitaabkii safiinaha ku soo qaadanay inay jiraan xayawaanaad hayru muxtaram waan soo qaadanay murtadkii oo kale zaanigii muxsanka ahaa taariku salaadkii kuwaasaa ka mid aha waan soo qaadanay iyo kelbigii caquurka ahaa wallah subxaana wa tacaala aclam